magaalooyinka qaarkood ay ka geysato duulaano aad u weyn iyadoo aad ugu soo dhawaatay ayaa layidhi magaalada caasimada u ah ee gobolkaasi ugu weyn. waxa ay arintani timid iyadoo dhanka kalena la sheegay in taliyaha cusub ee loo magacaabay howlgalka laguna wareejiyey uu yahay kii ugu darnaa. saraakiil u hadlay aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa ku tilmaamay ninkan inuu horeyba u ahaa kanwaanlihii dalka Suuriya si daraadeedna aan kheyr laga sugaynin. waxa ay sheegeen in General Alexander Fornikov uu noqon doono mid masiibo weyn keena. Jen Psaki ayaa waxay ku tilmaantay ninkaasi inuu la imaan doono cadaadis aad u xoogan dagaalka iyo masiibada halkaas ka taagan oo si laba jibaari doono isagoo gumaad hor leh ka keeni doona dalka Ukraine iyo baatooyinka ka jira. mid ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee Carabta ah asalkoodu yahay ee dalka Israa'iil haysta ayaa wuxuu ugu baaqay askarta Carabta ah ee ku jira ciidamada qalabka sida Israa'iil in ay hubka daadiyaan isla markaana ay iskaga tagaan. waxa uu ku tilmaamay in askartaasi u adeegaysa militariga Israa'iil ay yihiin kuwa ku nool bahdil iyo sidoo kale sharaf xumo oo ay ku tilmaamay inay ku nool yihiin nolol xayaato xun ama nolol fool. waxa uu yiri dhalinyarada Carabta ah ee ayaga oo waalidkood isku raaceen in lagu daro liiska inay u adeegaan waxa loogu yeeray ciidanka ammaanka waa idin sharaf dhac ayuu yiri idinku u adeegaya ama la shaqaysanaya ayuu yiri gumeystayaal iyo qabsadayaal. ninkan waa xubin kamid ah ururka Knessetka waxaana magaciisa la yiraahdaa Ayman Oda oo maqliya muuqaal ka soo duubay bariga magaalada Qudus ee barakaysan ayaa waxa uu sheegay in uu ku sugan yahay duleedka marinka loo yaqaano markaasi geedka Dimashq ama albaabka Dimashq. waxa uu yiri waan ogahay awalba naf mayda lahayn oo ciidan badan ma ay lahayn boqolkiiba hal ama boqolkiiba dhibic hal bad ka tihiin ayuu yiri ciidan hubkooda wajiga uga dhufta kadibna ka taga bedelkana uga taga dambiyadooda ayaga kaliya qayb ha ka noqonina dambiyada galayaan bedelkana ku biiro dadkiina halganka wada ayuu sheegay laakiin isaga laftiisu